boqol lixdan iyo laba milyan 400 oo kun goormay dhammaanay. السلام عليكم شركة وايو عن كاع سنينا العقال لقوسو قلدي subax anagoo xaafadeeda iska hurdaayo soo wac xasana wuxuu dhahay dhiilaa ku haya waa dhac digital ah walibana turuufadiisa wata loona maray abka waafi iyadoo la lunsaday xisaab maaliyadeed oo ku dhawaad ah $11,000 eedeysanaha kuwa saddex xooga Faysal Shire dhaqane cabqariga sheekadan ana hogaanka shabakada waafi wax ku dhacda kaliyana beeksada dadka waayeelada ayaan fahmi karin isticmaalka abka waxa uu soo wakiisinayaa Salaam Soomaali Bangi isagoo dadka u sheegaya inay cilad ku timid bangiga loona baahayaa inay raacaan tilmaamihiisa si aysan u dhimin lacagtooda galkan waxaa dhibana ka ah habkaas turuufadaana loo dagay maama Raaxa Cabdulla Maxamed oo kamid ah ganacsatada maacuunta ku iibisa suuqa bakaaraha waxay yiraahdeen waxaan maamulka bangi Salaam waxba ka qaldamay bangi akoonkaada lacag ka baxda xasaas ay yiraahdeen marka lacagtii sidaas ku baxsadeen si fiican u faahfaahin maxaa isdhahdeen xarafan bixarfin maxaa u dirtay maxay ku warsadeen macnaha waxay sheegeen inay yihiin maamulka bangi Salaam inay yihiin ay sheegeen marka waxay yiraahdeen waxba qaldamay waxba lagu waxaynayaa daqiiqadii raahaysta daqiiqadaas hadday ku dhaafaan lacagtaada ma helaysid ay yiraahdeen marka waxay taabay dhaheen lambaradaas lacagtii kula baxeen lambarkii taabay ma waxay ku weydiiyeen markaad noo soo sheeg ku dhahan tiro lambarada taabay igu dhaheen waxa saas sameeyay iyaga ku hagay macna ayaga ha aye lambarada sidaas lacagtii ku baxday marka ayaga ay gala baxeen lacagtii waa lambarkii kala baxay taqaana ha aqaan shirkadu sa ka dhiga shirkadaas ka dhiga meeqa lacag ka maqan waxay ma 1985 ka maqan hal maalin ma laga baxsay halka waqti laga baxay hal maalin saacad ama saac bar ama saacad gudaheeda laga baxsay lacagta dhan hal mar yaa ku soo sheegay dadkii wax ku dhacay shirkada u dacwootay hormuuda ku qabatay lacagteeda igoo ka sarifanayaan yaa u sheegtay adiga in laga xaday ani hormuudan tagay hormuud markaan tagay waxay yiraahdeen lacagtaadii waxa waaye waa la baxay markii la baxay hormuudka laan kala soo wacday waxay yiraahdeen ka imaad hormuud waxaan ku haynaa nimanka lacagtaada soo baxsaday sidaas marka meesha u tagay nimankii CD-da loo dhiibay CD-da marka xirtay maxaa ka shaqeeysaa maamade ani waxaan ka shaqeeyaa meesha maacuunta bakaara maacuna gada marsiga lacagta kadib kuwa eedeysanayaasha dhaca turuufada ayaana hindisay qorshe ay u arkeen inuusan wax ticraaca lahayn lacagtana loo bedelo shilin Soomaali waana si loo marhababiyo shirkadda Hormuud oo raadkoodu haysay shabakada maadaama ay awood u leedahay xakamaynta kala gudbinta lacagta boolida ah $5,600 ayaana loo bedelay 162 milyan lacagta dalka sarif la 9 ayaana halkan ka soo qabsaday sheekada oo laga sariftay kala bar lacagtii la soo turuufeeyay isagana waxa hadda ka xayiran lacagtii bedelka ahayd uu bixiyay mudan gudoomiye aniga iskooska Dubai waxaan ku leeyahay xarun ganacsi oo sarif ah meeshaas waxa igu imaaday ninka la yiraahdo Faysal 5,600 oo isoo tuuray lagu dhufto 29 sarifka markaas wuxuu maray 2,900 162,400 naat jawaana ugu shubay waana iga qaatay shilin Soomaali ma bixisaaday shilin Soomaali aan bixiyaa waxaan ka helaa shilin Soomaaliga bangiga dhaxan ka qaataa bangigana gobolkay ka soo martaa gobolka Banaadir la shaqeeyaa waxa la wixii agaasimo meesha jooga Bashiir Shumba kamida dadkaas kaashka ay soo la soo siiyo jeega loo soo qoraa aniga sarifaa meesha Dubai xaruntiida ah suuqleena meesha iga gataan sarifka marka waaga haduu bari aniga yaar saaqay fatax meeshan soo fariisana shilin Soomaaliga saa ay beeco qofkii baawrka soo digata ama mooto ka soo digato $100 sarifayso bedelkeena siya oo soo toorto shaqadii intaas $5,000 meeqa lacag naqay meeqa milyan naqay 162,400 noqoto 1 milyan marka baabuur ma ku qaadaa soo qaadaa mooto lagu qaadaa mooto saddex jawaan lagu shubay yaa ka fasharay lacagta lacagta sarif Faysal Hormuud taqaan adiga ma isma naqaan meesha qofkii mar wax kaga sarifto wajiga dareemi kartaa mugta Faysal ninka xagga fadhiyo waay Faysal ninka gadaal fadhiyo waay marka ninkaas gadaal fadhiyo Faysal markaas ku guureysana macaamishan markaas ay guureysaa lambarka marka uu kala macaamilay magaciisa ku qoran lambarka somneedo ay ma xasuusada laakiin 6 ugu dambeys ana shaashada lambar 5 ay saaran 5 ibir 239 ibir lambarkaas oo lacagta ku diray waa la xanibay Hormuudan tagay waxa la dhahay shatigaada la imo shatigan geest waa la fur lacagta somneeda haddana iga xirtay somneeda oo imid waxaan dhahay lacagtan aniga iskala ganacsiyan ay kaasha la iga qaatay ma iga xanibay waxay dhahay lacagtaada anaga waxaan ku furi karnaa warqad maxkamadeyn helbis ilaa hadda lacagta iga xirantahay هذا العقد ما كحيران هذا العقد العقد إيجا حيران العقد ما أنت صار ليجا صرفتي بدل كده إيجا حيران ده 5,600 إيجا حيران ده كحيران ده هرمود ما كحيرت هرمود يوم حيران صمنا إيجا حيرت صمنا ده كودرة الأمر صمنا ده كسوت وريها سؤال أن كويدي وحواي مجرى حد كوجو أن الصرف سيد الصرف لياش شكله مجرى هرت حد جو أن وصرف لياش إليهن مجرى تاس ممكن جواب كرا نتيجة كجواب كرا واحد هو يقول مجرى مكول مقتل العقد إن هاد العقد لا شقيستي
lacagta ninka ay gadanay uu leeyahay mise anigu qofka lacagta ka sarrifanayay wax jawaana ma sidanin Soomaa jawaanta in shaqada kamid ah anaga jawaanta adaa bixiyay si ay diimku weydiisay xog ah goobta aad ganacsiga ku haysid inay kaamira leedahay waa laga qoray waxa soo dhan ma u sheegtay waa u sheegay amaadsantahay qayb xisaabeedka kale aad tabaysa dhageystow eedeysana Faysal ayaa u kala qaybiyay simakaaro somneed ah oo ay kala wateen eedeysanaha labaad Cabdifataax Cabduqaadir Cabdulle iyo eedeysanaha saddexaad Xasan Axmed Aadan oo iyagana xarumaha shirkadda Hormuud u aaday sarif ka raacday inta tagteen ma ana mootada jidkan ba ka soo raacay bakaaraan buu soo socday aniga haye isku shaqo ma ahanba bakaaraan soo socday ninkaan isku xaafadana maadaama bakaar u socday waxaan rabay inaan hor u sii raaco markuu soo biistaagay oo mootada xiriin isugu yiri gudaha oo gale oo soo laabanay iyo wixii abtilada markay dhacday waxbana lama weydiin si iidaana la keenay adiyo ani iyo Xasan ay mootoli ah mootada waa mootoli waa la sii deebo aniga ma mootada waabana laga reebtay marka inta limid oo su'aal is weydiiyo ku soo dhibo waxyaalahaas isku ima markaas wareysa bilawday markaas intan wuxuu dhaanay lacagta hebela ii soo dhibo wixina saas waaye aniga intaas lacag ma wadinaan dhahay cadeena la iska rabaa mobilkayga waaga ninkaas ma taqaana waa aqaana mootaan ku qaadi jir ana mootola mootadana waa igaaleysan tahay maantana ma shaqeynayna bo marka intaas ma aha waayahay dhahay meesha gudaha iska galay wareyska lama galay maalintaana ugu dambeeyay oo la wareyska kadibna garmaqaatina nasmiya ma aqaan wuxuu ku loo magaciisa saxda ma aqaan ma magac sax kuma aqaan garmaqaati bisaa ku aqaan ya garmaqaat u taqaana ninka oo hadda sheegayeen garmaqaati liira magaciisa saxda ka garmaqaati loo aqaana ma aqaan baan mootalan ku soo qaaday wuu soo wici jir aan mootola ay mootaan wada mootada habeenkii markuu meel u socdo ama safar markaas aan qaadi jir wuu soo wacay garmaqaat waa asna qaanada yeelus inta ka yeelus maxaa adiga sax ma ho garmaqaatan maxaa inta keenay garmaqaatan ninka labada nin ka dima eega ma garmaqaat wax keenay eega keenay dadku weydii oo meesha ku soo qoray ana aqoon dheeriyo kale uma leeyahay labada nin ka mid ma garmaqaatan la may kan horta ku xiga magaciisa maxaa la Xasan kaas ku kalna maxaa la kaas aan inta leew keenay hore ma aqoon ba aqoon dheerna ma dhayn ya shaqana kaas ma aqaan qof ay shaqaaneen kana istaqaanin lacagta ninka ay shirkadda ku qabato ku xirtiyaa waa ninkan waay ninka kula socdo ninkan oo kula fadhiyo Xasan Axmed Ali Xasan lacagta lagu qabsaday adi lacag noocay weeyto marka adi lacag wada maxaa lagu xiray macna tuhna waa qabasho tuhna waa la socotay wax cadeen igu hay ma lahada ama wax igu cadeysay Faysal usoo dira dhuhu saabe Faysal usoo dira Faysal كأني مدينة وتاس فيصل أو صادر دون شكوك ميمانين نكا مركل الويديو أو فيصل وماشي أو كداها إلى مغلبان واحد فيصل أنا شيء قبل أنا نكا مستغنينه غانا نكاسنا نكاس أخوان كل ديرو ملي أنا حافظ الدقيقة لا لك اسم النقان اسم الدحقلنا نكا نتيجة الصور عن اللي مدينه نكا أنا عادي مسكت غاني نكا عادي أسكن نقانا صاحب بابنا وكل محل وحر موتولا إسلاهان شنت بقول عوض وحشم بقول لي ما بجرت والله في لو صوتور لما هاي oo 500 lagu mahayo cadeynteedan lagu mahayo anoo baxsanaay lacagta meeqa haysaa wax lacag aniga hadda ahay ma jirto lacag $1,000 ninkaas ii soo diray lacagta $1,000 shirkadda Hormuud ay ugu qabatay lacagtiina baarihayga safdumiya loo dhiibay shirkadda Hormuud ay u dhiibtay meeqa mar hore lacag ugu soo diray hal mar lacag u sarf marka horeysa $68 qaad lagu iibiyay qaad ugu iibiyay $1,000 maxaa ugu qabanaysaa marka $1,000 waa soo wacay aniga bajaaja ku qaadayay subax anigoo xaafadeeda iska hurdaayo soo wac Xasan wuxuu dhahay dhiila ku haya lacag $1,000 ku soo dira shirkadda Hormuud tag ii soo bix lacag aan ku siinaa way hayada lacagtii sidii igu soo diray shirkadda Hormuud galay shirkadda markaan galay lacagtii aan tuuray ninkan odigaas la soconay isagana laf kale watay oo 500 ay ku jirto oo ninka garmaqaata la isagana uu soo diray garmaqaatana muxuu ahaa garmaqaata ninkan soo wacayeen waa ninka maqanaha oo hadda naloo soo xiray inta la raadinay Hormuud galay Hormuud markaa galay lacagtii tuuray waxay dhaheen lacagtan subaxnimadan la sarfay maxay tahay intaano samne soo dhaxmartay nimana ii soo dhiibtaa dhahay annahu macnaha nimankii waa keena waxa la yiri marka lacagtan lacag la soo dhacay waaye lafa badan ee soo dhaxmartay dadkii laga rabaa marka waxa la yidhaahdaa laftan oo samneedka lacagta laga soo tuuray 500 aaway ninkii wada mootadu ila saaran yahay nimankii Hormuud soo raacnay banaanka la soo istaagay ninkan oo mootada ku jira la soo qabtay shirkadda labadeena la geliyay waxa la nimankii lacagta idin soo dhiibtay la in ka rabaa waa keenaynaa dhaan marka
CAD ana la keenay nimankii ana la weydiiyey waxaa dhan nimankii waa keenayna maalmaha kamid ah maalintii waana la xareeyay maalintii ku xigtaana la waday ninkan odayga Faisal xaafadii uu deganaa aagii way ka baxsadeen xaafadii maalin kale ku xigto inta CAD Cabdibilaan lagu daray waxaa tagnay guriga aabihiis wuxuu noola soo baxay qori ka ay barnaamijkii waxaan loo soo baxay meesha kala arag naftiya risk gash soo qabashada aniga u socon waa ka soo tagnay wala soo waay saldhiga tagnay ninkaas aniga keenayeen dheer sidaas CAD liigu soo celi kadib baarisa socotay ninkan odayga anagoo 2 bil xirana la keenay sidii marka waxaan la lahay waxaan noo imaaday garsoore maalmaha kamid ah cadeyntan maalintaasna laga qoray intaas ogaa mudan gudoomiyaaniga asaga marka $1 ku soo diray bismiya kuna ii soo diray aniga 500 kale la sheegay oo Cabdifitaax 600 ka imaad 500 oo ninkan lagu sheeganayo labadeen horta xaafada ka soo wada baxnay adiga iyo inteena mudan gudoomiye isku xaafadana Cabdifitaax ninkan la haayo Faisal isku xaafada jira oo deganay aqoon oo isku leenahay ninkaas nin ciidan waay ninkan nin bajaaj la waay labadeen bajaaj laanahay labadiina bajaaj leeyahay Cabdifitaax iyo Faisal waa siqaanaan inteena isku xaafadana mudan gudoomiye marka subaxdaas labadeenaba la soo wacay oo lagu dhahay micnaha lacagaas aan soo sarfeysiin sidii isku soo lagu darsanay marka lacagtii $1 oo lagu soo qabtayna shirkadu waxay ku soo wareejisay kaliya lagu diray kaliya li soo diray Faisal muu cino lacagta li soo distaa lagu haystaa ma dhihin miya waasnaani CAD subaxdin 2 saac ahayd aniga mobilkeegi niclo aniga mobile weyn watay meeshaan la fariisiyay baariyaashu way fadhiyeen wayna soo wacayeen waxaana lagu amray marka in guryaha loogu tagaal rabay marka meeqa faa in soo wacaysan ninkaan anuu soo wacay ninka odayga garmaqaata soo wacay garmaqaata ciidan asna shacab waa Cabdifitaax maxaa laga qaadaa asiga aw lacag laga rabaa asiga lacagtu una sharaxay macnaha shirkadda waa ku kala hormarnay xarunta weyn ee ku taalay ahayd Soobe laamiraad Soobe macnaha lacagta markii la soo diray ninkaan lafa loogu diray ana lafa liigu diray aniga marka waa ku hormaray isaga shirkad kale inuu galu rabay aniga marka waa ka hormaray marka shirkadii galayna waa hormuud ay qabsatay samneedka lacagta ay ku jirtay oo aniga liigu soo diray hormuud lagu sii wareejiyay macnaha samneed qad ay ka isticmaalay marka halkaasi ay joogtana hormuud oo shaxda turuufada ku baraarugtay ayna soo gaartay cabashada dhibanad maama raaxo ayaa laanta baarista dambiyada la wadaagtay dhaqdhaqaaqa eedeysanaha labaad iyo saddexaad CID ayaana gacanta ku dhigtay labada eedeysane iyo lacag $1 ah xeer laaliya gaashaan la dhexe Axmed Cabdallah iyo xogo kale oo maqal iyo muuqaal ah meeshaan waxa ku taalo lacagii qaabka u turtay $200 oo kala soo baxay inta loo taraafiir wuxuu u tuuray laf somneeda oo uu qoran tahay Maxamed Ciise Cabdi waa meeqo $900 u tuuray halkan waa kana daray $500 ayuu kala baxay $555 ayuu wuxuu u tuuray Maxamed Ciise Cabdiraxmaan waa isla magacii qofkii uu hadda u tuuray 900 waa kana $555 hadana u tuuray waa lafa somneeda oo ayaga ay soo wada baxsadeen oo magaca falsay soo wada qoreen okay $900 oo hadana wuxuu u diray isla magacii $800 hadana wuxuu u diray isla laftii somneedka ahayd okay mar kale $900 oo diray $700 u diray $3,000 wuxuu kala soo baxay laftii oo dhibanada $3,000 hadana mar kale kala baxay $499 wuxuu u diray laftii somneedkeeda isla halkii laf waa Maxamed Ciise Cabdiraxmaan $255 Maxamed Ciise Cabdiraxmaan isla halkii laf waa kana isla halkii laf hadana u diray somneedka ahaa lafahan oo dhan markii uu u dirsaday laftaan markuu u dirsaday Maxamed Ciise Cabdiraxmaan wuxuu u tagay eedeysanaha ninkii sariflaha ahaa ee aan maxkamadda hor keenay wuxuuna ka sariftay lacagta $5,600 ah Faisal maxaa cadeenayo markay oo cadeynta kala ah oo codadka laga haayo asaga iyo adeerkiis lacag marka ay dhici rabeen oo ka kashifantay oo dhibanihii la dhici lahaa uu fahmay jirta marka codkeedana waa kana wani hadda waran kula geli kariyo waxa sameynaysaa inaa 900 ka soo bixiyo EFC ka keenay xiddig 71 wareer markaa dhahay dada uu maado igu ordee qofka forjadaas ee ani waa forjas ku kuheysay nina $900 ina ka dhigtay EFC markaa keenay dad u imaadeen asali fashilay asa meeshaas ku fashilay lacagti waa iga badbaadood leey macnaha waa shabakad dhan oo ku qaraabta alaabta ku qaraabto bas application-ka ku qaraabtaan baraha galkan ayaa laga dhageystay soo qabashada shabakada habka shaqadooda iyo natiijada baarista mudane gudoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh taariikhdu markay ahayd 6 bisha afraad cabaara 1 saac 45 daqiiqo oo subaxnimo waxa ay soo wacay
sarkaal u qaabilsan shirkadda hormuud qaybteeda sooba dhinaca amniga wuxuuna ii sheegay inay gacanta ku hayaan 2 nin oo qolada wifi-ga wax ku dhacda ah number la dabagelayay oo lacagihii laga shishibtay dhowr number ay soo martay lacagta ayaga loo soo diray waa laga shakiyay ninkan magac sheegaa la yiri lacagta meeshay kaaga timid sheegaa la yiri uu garan waayay sidii uga shakiyeen waa qabteen markay qabteen ana la soo wacay 1 saac 45 daqiiqo waa baxay meeshii aan tagay aan meeshii uga tagay Xasan iyo Cabdifataax Xasan iyo Cabdifataax waa la soo wareegnay wixii markaas lagu qabtay oo ahaa fala garansihi waa la soo wareegnay waxaan keenay CAD isla markaa annaga cadaynta ka qorayno Xasan iyo Cabdifataax waxa soo wacay ninka la yiraahdo Garmaqaate iyo Faysal consecutively 40 jeer ay soo waceen miiska ii saarnaayeen telefoonada wayna la hadlaayeen codadkoodana waa maqlin bas waxa dhacday inaan operation sameeyaan taliyaha qaybta ka codsaday aan soo qabto Xasan wuxuu sheegay in gurigaas uu hub yaallo dadka degan qayb ka midana ay danab yihiin taliyaha qaybta marka isaga oo fiirinaya duruufaha dalka ka jira iska hormaad inuu dhaco ayadoo oo la raadinayo lacag oo wuxuu sameeyay intii bal iigu kaadiyo madaxdan wargelina meesha dhimasha ka dhici kartay xeer ilaalintii intii hawshii lagu guda jiray guriga waaba laga guuray markii nimanka lacagta loo keeni waayay keen lacagta ay dhaayeen lacagta markii la keeni waayay guriga waa laga guuray gurigii markii aan tagnay oo aan operationkii sameynay gurigii aan tagnay gurigii alaabta laga aruursaday aan tagnay oo already laga gaashaantay markii dadka deriska aan weydiinay dukaana ku ag yaala waxaana la dhahay Cabdibilah gaari Cabdibilah imaaday wixii meesha jooga hadda qaaday dan waxa dhacday gurigii qofkii lahaa aan raadinay waa soo qabanay waa keenay maama iska lahayd guriga waxa deganaa Faysal hooyadiisana damiinka oo degmada Faysal deganaa guriga hooyadiisana damiinka ahayd dan nimankan waxaan raadinay Faysal meesha uu ka tirsan yahay waa soo ogaanay warqadan waxaan u dirnay meesha uu ka tirsan yahay waa la soo qabtay hangashta lagu soo wareejiyay hangashta waxayna dhaheen maxkamadda iyo xeer ilaalinta uma idin ku soo wareejin karto maxkamadda lagu soo wareejisay Faysal markii uu noo imaanayay wax telefoon ama wadanin wax sim card ama wadanin asagoo mutaxana naloo keenay numberkiisana waa haynaa oo nimankan ka soo wacay asaga iska leh meel aan ka baarna iyo waxba ma ayna jirin mudane gudoomiye waxaan geynay kiiskan markii hore maadaama labadan qof ay shacab ahaayeen waxaan geynay maxkamadda gobolka Banaadir waa eedaynay maxkamaddu ay nagu soo celisay waxay tiri dadkan lacagta ayagu qofka kama qaadanin waxaad ku soo eedaysaan gacansiin birina soo celiyaan nadiir gacansiinan ku soo eedaynay waa keennay waa la rumaan gareeyay ayagoo 2 bilood rumaan garaysan Faysal noo ku soo wareejiyay baarista kiiskeena waxaan ku ogaanay mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh in kiiskan qoladan saddex category isugu jiraan qayb waa askarta gaaygaayasha oo dadkan ilaaliya qaybna waa qayb qolada hormuud iyo salaama banka iska dhigto oo codadkoodii leh oo dadka u sheegay inay 20 daqiiqo kadib wixii akoonkooda iyo lacagtooda ku dhac mas'uuliyadaas aysan shirkadda qaadi doonin ulana imaan doonin ay dhahayaan dadku wifi ka furanayo wifi-gaas waxa laga sameeynaa team kala jiro waxay haystaan sim card samneeda oo aan qofna ku qornayn qof kasta waxa la baxsi sim card samneed soo qaado lacagtii la doonaa loogu shubaa sarifliyaal way kuwaasna boqolkiiba waxay leeyihiin 20 markii $1 loo tuuro ay soo sarifaan 800 ay keenaan 200 ayaga iskale waa shaqo fudud haddana aan wax dhibaato ah lahayn markii si loo fiiriyo wax badan oo ay ku soo moodeen marka waxa jirtay shabakad tan ka horeysay oo dayni la deganeed oo aan baabi'inay tan hadda waa shabakad kale baaristeen waxaan ku ogaanay labadan nin inay yihiin gacansiin ninka dambiga geystay oo ninkaas la yiraahdo Faysal Shira Dhaqane sida baaristeen aan ku ogaanay shirkadda hormuud markii nimankan ay soo qabanaysay ay noo sheegeen runta noo sheegeen operationkan sameeyeen aan ku soo ogaanay hadda kiisaad ka bilowdo waxaan rabaa inaan maxkamadda iyo dadka u sharaxdo say ku suurtagalay qof inta akoonkiisa loo jabsado
kabacdina lacag laga qaato ayagoon isla joogin ayagoon is aqoonin triigga ama khudacda la isticmaalayaan rabnaa inaad maxkamadda iyo dadka ka dhaadhiciso waxaa jiro ideology lagu ogaan kara dadkan lacagaha haysta iyo dadka waaye inta badan dadka la dhaco waa qof waayeel ah ama qof weyn qof dhalinyaro waa la dhacay dhahay ma arkin ani ilaa hadda waxaan haynaa 30 kiisaan diiwaan gelinay 30kaas kiis dadka la dhacay waa dad da'dooda ay ka weyntaa 45 sano ma jiro qof 30 sano iyo meelahaas oo la dhacay ma jiro marka qofku waa la soo wacaa waxaa la leeyahay lacagaa lagugu soo qalday lacagtii waa lagaa jaray akoonkaagii waxaan rabnaa inaan wax ka bedelno lacagtaas lagaa dhacayna aan kuu soo celin lacag badanaa lagaa celiy lacagtii kugu soo dhacday baa mid ka badanaa lagaa celiyey waxaan rabnaa inaan wax kuu saxarno waxaad samaysaa tilmaamaha laguu sheegayo raac koorka kuu soo dhacayo soo sheeg markaasaa qofkii wuxuu leeyahay lacagtaydii wixii dhan asaa daadinaya marka qofka shirkadda waayaa leeyahay salaamu calaykum shirkadda waayo waxaan kaa codsanaynaa lacagaa lagugu soo qalday si mistega waxaa lagaaga qaaday lacagtii lagugu soo qalday ka badan marka si aan kugu soo celinno koorka kuu soo dhacay geliyaa leeyahay qofka markii uu koorkaas geliyo meesha marka already waxaa laga samaysanaya akoonkiisa waxaa laga furinaya wifi marka la furto oo hal koora u dhacaya wifi-ga la furanaa koorka labaad akoonka markuu weydiiyo password change le numberkiisa waa la hayaa waa la gelinaa markaasaa koorka numberka ku dhacaya xagguu yaallaa marka numberkii koorka ku dhacay si loo helo waxaa la weydiinaa koorka haddana kuu soo dhacay soo sheeg waa kii labaad oo akoonka ah akoonkii marka la isla helo marka wifi-gii waxaa la leeyahay load leeyahay bas wixii lacag ahaa akoon ku jira wifi-ga imaanayaan wifi-ga automatically sabneedaa lagu shibanayaa marka ninkan waaba lala wareegaba haddii uu istaajis dhahana ma istaajin karo passwordkii ma hayo wixii dhan ma hayo waxay noqonaysaa inuu shirkaddii asaga wuxuu soo cararo cabasho geysto qayliyo maamadan hadda saacadda la dhacay iyo saacadda lacagihii dhan la kala qaybiyey waxaa u dhexaysay 35 daqiiqo 35 minutes u dhexaysa taariikhdoo dhan intay ku qoran tahay markii akoonkeeda laga shibay iyo samniyadeed loo qaybinaa 35 daqiiqo waa waxaa gacanta ku soo dhigtay cabdifataax iyo xasan iyo lacag waxaa sheegtay in xasan aad baartay lacagta aad ka heshana $1 ay taadna haysid soo ma baaristaada wax ka badan kunkaasi kuma ogaan soo ma inuu qabo maya gunaanadkaadi waxaad sheegtay labada eedaysane labaad iyo saddexaad in ay ahaayeen gacansiin wax faysal aad ku qabatay oo lacaga oo ama aad gurigiisa ka soo saartay ama asaga oo lagu wada lagu keenay ma jirin soo ma ah maya amaadsantahay ku-xigeenka xeraalyaha guud ee ciidamada gaashaana dhexe Axmed Cabdallah ayaa maxkamadda ku codsaday in lagu xukumo 3 eedeysane bixinta lacagtii ay dhaceen loona raaciyo ciqaab adag kiiskani mudan gudoomiye wuxuu dhacay 7 bishii 4 2025 eedeysane Faysal Shire Dhaqane ayaa wuxuu soo abaabulay barnaamij dhac ama turufo ama khiyaano ah oo loo maleegay dhibanad raaxa Cabdulle Maxamed waxaana dhacaasi looga dhacay dhibanada $10985 eedeysane Faysal ayaa ka dhacay Faysal sida hadda maxkamadda laga hor cadeeyay barnaamijkani waa barnaamij uu ku qaraaban jiray oo lacago badan uu kaga faa'iiday oo shaqadii ciidannimada ee xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan commandoska danab uu u hayay uu uga maarmay lacag si fudud uu ku helaayo oo khiyaano ah laakiin xaaraan ah ayuu ka shaqaysanayay gurigiisa ayaa waxay u ahayd xarun uu saldhig ah oo kaga duulayo dhacaas uu kaga abaabulayo waxaana garbihiisa ahaa eedeysanayaasha labaad iyo saddexaad oo u shaqaynayay lacagahaas u soo sarrifayay mudan gudoomiye eedeysane Faysal hadda markii eedda loo jeediyay wuu iska inkiray laakiin wuxuu dusha ka saaray barnaamijka saaxiibkiis Garmaqaate oo maqnaa Garmaqaate intii hadda baarista ay socotay oo eedeysanaha la hayay magaciisa saddexan uu sheegay waa numberkiisa taleefanka uu sheegay waana saaxiibkiis si laamaha amniga u soo qabtaan haddii uu u fududeyn lahaa waa la soo qaban lahaa laakiin uu ku wada adkeeyay inuu baaris u sheego magaciisa saddexan meesha laga helaayo iyo taleefankiisa ma sheegin balse eedeysanaha saddexaad ee ah Xasan Axmed Aadan laamaha amniga iyo laamaha baarista buu u fududeeyay sheegista xogta saxda ah ee eedeysanayaasha
iyo soo qabashada eedeysanaha maqan faysal markaas uu maqnaa kiiskani qaabka uu dhacay markaa sharaxaad ka bixiyo inkastoo baarihii iyo markhaatiyaashiiba ay sharaxeen faysal markii uu lacagaha u kala diray eedeysanayaasha labaad iyo saddexaad waxaa lagu qabtay shirkadda hormuud shirkadda hormuud lagu qabtay muuqaal CCTV camera oo hormuud ah ka soo qaadnay ayaa jirto oo eedeysanayaashan meesha lagu qabanayo cadeenayo muuqaalkaas soo soconayo 30 iyo dhowr daqiiqo maxkamadda si gooni ah ula wadaagayna si ay u daabato inkastoo eedeysanayaasha labaad iyo saddexaad ay qiraal ka yihiin in hormuud laga soo dhex qabtay haddana waxaan ku xoojinaynaa soo qabashadooda in hormuud laga soo qabtay waxaana looga shakiyay sida hadda uu ka hor cadeeyay xasan in lacagaha somnetka ee isdhaafdhaafay dhowr somnet oo ku kala tuuray faysal markii uu lacagta ka soo dhacay dhibanada somnetkaanu ka gidii kanu ka sii gidii sidaas ayay uga shakiyeen eedeysanaha markii su'aal laga weydiinay wuxuu yidhi ninkii ii soo diray idin keena laakiin faysal muusan keenin ee Cabdi Fataax oo asna lacag kale $500 ah loo soo diro soo sarif la yiri shirkad kale baranji kale ka soo sarif la yiri ayuu keenay labadooda sidaas lagu qabtay xasan laamaha baarista kuma adkeenin sida saxda u sheegay wuxuu yiri faysal lacagtan ii soo dhiibay wuu ku shaqaysan jiray dhowr jeer aan jaad u soo gadi jiray asaa ii diri jiray anna faa'iidada ka heli jiray bajaaj la ahaa xasan marka taas uu ku maadsan ilaa ma amnigu la shaqeeyay lambar 2 wuxuu laamiya baarista u geeyay guriga faysal uu deganaa oo barnaamijkan uu ku soo abaabulayay taasoo daqiiqada ka hor inta uusan tagin meesha uu ka guuray faysal mar alla markuu ogaaday in la qabtay labadii nin ee asaga u dirsaday lacagta gurigu isaga baxay baarihii iyo taliyii saldhiga degmada iyo taliyii nabad sugidda markii guriga ay tageen waaba ka guuraba ninka cadiblayaal uu ku kaxaystaa la yidhi lacagna waa haystaa lacagtan sida fudud ku soo galayso ayuu haystaa $5,600 markaas uu soo sariftay wuu ka maarmay $1,500 labada eedeysana lagu qabtay ee ka maqnayd uu ka maarmay laakiin 40 jeer inuu wacay waxaa sheegay baarihii wicitaanadiisina waa la hayaa oo forensic laboratory-ga ayada soo baarayna maxkamadda la wadaagayna haddaba mudane gudoomiye eedeysanahani markii uu ka baxsaday goobtaasi waxaa lagu soo qabtay xafiiska xeer ilaalinta ayaa waxaa ka soo codsaday CID gacansiin sida eedeysanahaas lagu soo xiri lahaa maadaama askariga xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan uu yahay xafiiska xeer ilaalinta waxaan ka dalabnay danab oo uu ka tirsanaa xerada Beledogland laga soo qabtay eedeysanaha sidaas ayaan ugu wareejinay laanta baarista dambiyada CID haddaba mudane gudoomiye waxaa cad in eedeysana Faysal Shire Dhaqane uu kiiskani geystay horeyna kiisas badan uu soo geysanayay shabakadan hadda saddexda ah ee asaga uu madaxda u yahay meeyaan shabakad kale oo hadda xiran oo baaristooda socotana oo link la leeyahay xiriir la leeyahay lacagan isdhaafsanayn kuwaan wixii ay soo dhacaan oo Faysal soo dhacaan qoladaas kale waxbuu ka siin jiray haddaba mudane gudoomiye bacdama dhibanad raaxa Cabdulle Maxamed ay tahay muwaadin Soomaaliyeed dib loo geystay lacagteedii ka maqan tahay ugana maqan tahay lacagteeda Faysal Shire Dhaqane oo ah caadeysta dambi maxkamadda ciidamada qalabka sida hore ayaa eedeysanaani loo keenay isagoo geystay fal dambiye dil ah la keenay dhowr sano oo ciqaab oo maxkamadda ay ku ciqaabtay iyo diidii laga bixiyay darteed eedeysanaha waa la sii daayay intaas kuma waantoobin ee dambiyadii ayuu hore u sii galay mar kale waa tan haddana maamo masaakiina inuu ka dhacay $1985 oo ay u baahan tahay muctaajna u tahay maamada ayuu ka dhacay eedeysanaha isagana inuu ku qayilo oo ku raaxaysto kaliya ayuu uga dhacay isagoo ah askari shaqaysto isagoo ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed laga rabay in muwaadiniinta Soomaaliyeed uu cadawga ka ilaaliyo ayuu dhac u geysanay eedeysanaha waliba si fudud application ku dhacay haddaba mudane gudoomiye maxkamadda sharafta leh waxaan si xushmad leh uga codsanayaa in dhammaan saddexda eedeysane laga qaado xuquuqda ama lacagta gabadha raaxa Cabdulle Maxamed ee eedeysanayaasha ka maqan oo ah $1985 in eedeysanayaasha lagu xukumo oo ay sida ugu dhaqsiyaha badan ku siiyaan maamadaas masaakiinta lacagteeda sidoo kale waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa in eedeysanaha koowaad uma qalmo inuu ciidan ka mid noqdo uma qalmo inuu xoogga dalka Soomaaliyeed ahaado uma qalmo inuu kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsanaado uma qalmo shaatiga loogu adeegayo bulshada Soomaaliyeed oo dhaca ku geysanayo eedeysanaha uma qalmo inay ka saartaan maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa sidoo kalena ay ciqaabta ugu adag ee qodobada 484 496
ay ku xukunto eedeysanayaasha maxkamadda sharafta lena waa mahadsantahay qareennada ayaa dhankooda dalbaday in xuriyadooda la siiyo muwakkiliintooda maadaama lacagihii lagu soo eedeeyey in ay dhaceen gacanta lagu hayo maxkamadda sharafta leh mudane guddoomiye garsooreyaal waxaan israacsanaa difaaca iyo gabagabada eedda marka ugu horeyso waxaan rabaa in aan ka hadlo qodobada eedda ee la dul saaray eedeysanaha waxaa lagu eedeeyey 484 iyo 496 labadaasi waa laba eed oo xeerka ciqaabta uu tilmaamayo hal qof hal shay laguma wada eedeyn karo lama dhihi karo maykan wuxuu ku qaatay burcadnimo maykan wuxuu ku dhacay xeelad lama dhihi karo waa laba eed oo laba weji kale leh waa inay lahaataa midna waqti iyo dhacdo midna inay lahaataa waqti iyo dhacdo laakiin labadooda hal dhacda iyo hal waqti labada qodob mudane guddoomiye lama isticmaali karo taasaan kaga haraa midda xigta waxay ahayd in doorka falka ee uu ku leeyahay eedeysanaha koowaad Faysal la caddeeyaa waxaa halkan laga sheegay 3 weji saddexda weji oo laga sheegay waxay ahayd eedeysanaha saddexaad wuxuu eedeysanaha koowaad ku tilmaamay inuu siiyey 10,000 maragii inta la keenay sagaale wuxuu halkan ka sheegay inuu ka sariftay 5,600 waa haddana isla Faysalkii xafiiska xeer ilaalinta hadda markuu presentationkiisa bixinayay iyo gabagabadiisii wuxuu sheegay oo tilmaamay Faysal in $900 oo dhacay oo ay ka wada hadlaayeen asaga iyo nin kale waa cajiib waay marka Faysal waa nin dabeecado kala gedisan maxkamadda horteeda loogu sheegay kiiskan Faysal doorka uu ku leeyahay ilaa ay hadda lama cadeynin ana cadeynayo inuusan door lahayn eedna lahayn mudane guddoomiye xurriyad ka qaadista Faysal waxaa xurriyadda ka qaaday taliyihiisa ciidanka xoogga dalku ka tirsan yahay danab xeradiisiyaa looga soo qaaday goormaa laga qaaday 2 bilood ka bacdi 2 bilood ka bacdi maxaa dhacay kiiskii waa dhammaaday raad ma leh 2 bilood ka bacdi kiis aan raad lahayn oo dhammaaday waxaa lagu soo eedeeyey xurriyaddana looga qaaday hadal uu bixiyey ama hadal ka dhacay qof aanan eedeysanana inta ka ahayn oo maanta dhan lagu mashquulinayay oo la sheegayay in la dhaho magaciisa garmaqaate maba jiryaba waa riwaayad sababtu waxay tahay garmaqaate teleefonkiisana lama haayo meeluu ku nool yahayna lama haayo raadkiisa ahna lama haayo horta kiiska meesha uu ka halaabay waxaa waaye haddii aan la haynin cidda la leeyahay waxbay samaysay raadkiisa aan la haynin iyo cayntiisaba kiis dhismaayo ma laha taasi waxay kaliftay ay sababtay maxkamadda gobolka banaadir inay kiiskan iska soo celiso ujeedka marka yaalla wuxuu yahay haddii Faysal la leeyahay marka waxaan ku haynaa faldambiyeed baarihii kiiska waxaan weydiiyey teleefonkiisa ma heesaa ma heshay ma baartay maya teleefonkiisa lama haayo qof aanan teleefonkiisa la haynin sidee loo dhahaa lacaguu sarifay lacaguu soo tuuray teleefonkiisa lacag ku dhacday lama haayaba xogta meeshii la rabay in laga helo lama haayo baarisna laguma samaynin nambarkiisa oo hadda halkan wuxuu tilmaamaya xafiiska xeer ilaalinta nambarkaana lacagta inta laga wareejiyay nambarkaana laga wareejiyay intuu ka keenay yaa u keenay number Faysal uu ku qoran yahay oo hay'adda CID-da ee gacanta ku dhigtay ma jiro waxaa halkan laga dhawaajiyay in uu jiro nambaro magacyo ku qoran laakiin aan la heli karin ay dad ku shaqeystaan laguma tilmaamin eedeysanaha nambaradaas ayaga ah laguma tilmaamin baaraha kiiska wuxuu tilmaamay intuu inta joogay 3 wajiyaa lagu shaqeeyaa uu yiri qolo iska dhigta ciidan oo shabakad
ciidan u ah faysal laguma sheegin qolof aqoon leh oo xirfadii iyo aqoontii iyo taleefon inay galaan iyo gudaha wax kala soo baxaan ma aha nin aqoontaas leh askari ciidanka xoogga dalka waaye saddex ma aha nin sarifla ah ma aha nin lafa qaado oo lafa soo qaato oo magaciisa ku qorto oo samaysto ma aha intuu ka soo galay waxaan aqaanaa waaye oo haddaad taqaanid faysal taa micnaheedu ma dembigiiyow ku leeyahay ma dembiilow noqona aniga faysal intaan fadhiso hoolka ninka keliya oo iigu dhow ee aan aqoonta u leeyahay ninkan waaye faysal si fiican aan u aqaanaa aabbihiisaan aqaanaa 2017 aan qareen u ahaa ayadoo lagu soo eedeeyey tuhun kiis dhacay asaan oo kale tuhun lagu soo eedeeyey maxkamadda ciidamada waa galnay caddaymaa la waayey beri oo noqday dembilaawow noqday albaabku ka soo baxay magna lagama bixinin xukunna kuma dhicin eedna laguma helin ay maxkamadii qaadato haddaan eeddi la helin aan la qaadanin haddaysan dhicin in xukun oo ku dhacay haddii aanan mag la bixinin beri oo ahaa anaa qareen u ahaa albaabku ka soo baxay maxkamaddu waxay garowsatay dhibbanihii xilligaasi inuu ahaa nin maqan oo dacwadda dhinac ka ahay maanta typically meeshii aan joognaa waa 8 sano kadib waxaan ku soo laabannay garmaqaate nin la dhaho inuu wuxuu doono sameeyey laakiin aan la ka saynin haddana la leeyahay asaa wixii oo dhan ka dambeeyo hantidina faysal aa qaatay faysal wuxuu degan yahay guriga uu degan yahay hay-adaha baarista waa ay tageen waa baareen shilin soomaali jeexan xataa lama keenin inta lacagtaanan ka soo qabanay gurigiisii aan ku aragnay lama dhihin waxyaabaha qariibka ah waxaa waaye mudane guddoomiye 162 milyan 400 oo kun oo shilin soomaali ah goormay dhammaanay su-aasha imaanaysa marka waxaa raadkeedii xataa lama arkaayo miya haddii gurigiisii la tagay haddii la baaray haddaanan waxba lagu helin haddii taleefanadiisa ayan lacag ku jirin mushaarkiisa wax dhaafsiisan ka badan in aanan laga helaynin haddii la baari lahay xataa su-aasha imaanaysa waxaa waaye see loo dul saaraa eeddaan maanta taagan ee loo leeyahay asaga waayo qofkii ugu weynaayo faysal markii xorriyadda laga qaadayay xeradiisaa looga qaaday taliyihiisii xorriyadda ka qaadaana ka qaaday taleefonka asaana soo tareefgareeyey asaana soo gudbiyey looma marin habraac sharci ah ee nin ciidan ah looga qaado xorriyadda mudane guddoomiye looma marin warqadda la tilmaamayo la leeyahay annagaa dalbanay iyo annagaa ka codsannay iyo annagaa weydiisanay iyo waa waxba kama jiraan waayo sidaasi darteed mar haddii aysan jirin gabagabadaydan aadaa mar haddii aysan jirin caddayn daba taagan faysal mar haddii aysan jirin waxaanoo kale inuu caadaysta ka ahay oo la tilmaamay ee aanan la soo hordhigin maxkamadda horteeda keliya af laga sheegay ay tahay waxaanan la qaadan karin mar haddii aysan jirin cid asaga hadda tilmaamayso oo dhehayso lacagtaasaan ku haynaa ama aan ku sheeganaynaa aysan jirin mar haddii maamadii inta istaagneed oo dhehaysay waxbaa la iga qaatay ayan dhehaynin qofkan aan dhibbano u ahay haddaysan jirin waxaa cad in uusan jirin dembiga la dul saaray eedaysanaha ma jiro asagana mas-uuliyad dembiga ma laha mana aha qof galay dembigan hadda lagu soo eedeeyey waxaan codsanaa marka maxkamadda waxaan ka codsanaa in marka ugu horeeyo xorriyaddiisa ay siiso kow marka labaad maxkamaddu waxaan ka codsanaa inay ku amarto ciidanka uu ka tirsan yahay taliyihiisa inuu u furo akawnkiisa lacagihii mushaarka ka maqnaayne la siiyo oo loo buuxiyo waxaan kaloon maxkamadda ka codsanaa intii uu xirnaay ee uu ku xirnaay CID-da ciddii soo xiratay la dul saaro in ay siiyaan lacag magdhow ah oo loogu xisaabinayo maalintii $100 shakhsi caadi ah soo xirtay in la dul saaraan codsanaa
waxaan sidoo kale aan codsanaa in dib loogu celiyo shaqadiisii iyo wax kasta ee uu xuquuq oo ciidanku ku lahaay waxaan codsanaa in shuruud la'aan maxkamaddu ay ku sii dayso waxaan ugu dambeyntii aan codsanaa in xurriyaddiisii la siiyo isla maanta xaaskiisii iyo carruurtiisii uu aado asagoo ah qof beri ah oo dembi laawo ah maxkamaddu waa mahadsan tahay waxaan u ahay qareen eedeysana labaad iyo saddexaad cabdifataax cabdiqaadir cabdulle iyo xasan axmed aadan maxkamadda sharafta la garsoor ee almudug gudoomiye eedda lagu soo eedeeyey muwakkiliinteeda sidaa hore u sheegnaba ma aha eed u qalanta ama ishaysta sidaa hore u sheegnay sababtoo ah 484 iyo 496 marraba meel islama galaan markii aan doodeeda hore galmada gudoomiye garsoor ee maxkamadda sharafta leh muwakkiliinteeda marka hore waa dad degan deegaanka shaqaysta oo xoogooda ku nool reer leh weligood aan la xirin markaan ka hor mar allaala markii ay la shaqaysanayeen ama u shaqaynayeen dadkii macaamilkooda uu soo dhiibtay hantida lagu qabsadayna laamaha ammaanka iyo cadaaladda wax gaadgaad ay ma gelinin soomaaliduna waxay tidhaahdaa raadkan hadduu ku soo galo walaalow raadkan aan ku soo galo iska bixi xasan markii la yidhi lacagtan $1,000 ayaa lagu haystaa yaa iska leh laamaha ammaanka iyo hormuud iyo dhammaan cid kastoo weydiisay wax shakiya iyo gaadgaad ma gelin wuxuu yidhi hebel hebel ayaa ii soo dhiibay alif ilaa ya ilaa iyo hadda maxkamadda meeshii shalay uu joogaa wuxuu taagan yahay waxaa ii soo dhiibay faysal ayaa ii soo dhiibay waxaa la yidhi faysal ma taqaanaa gurigiisa haahow sida uu sheegay maxkamaddana ka hor caddeeyey dhowr jeer ayaa la isku dayey ayaa halis ku galay in uu dhibaata ka soo gaarto si isku dhac uu ka yimaado meeshaas taasina waxay caddaynaysaa in waxa uu ku socdo ay yihiin wax maxaa la yidhahdaa turufo iyo khayaano iyo dhac inaysan ahayn uu yahay nin u soo baxay shaqo iyo turufyo waxaas inaysan ahayn waa aabba haysta carruur iyo xaas cabdifataax wuxuu la socday xasan wuxuuna u socday bakaaro si uu ugu soo adeegto sida uu ii sheegay markii la qabtay oo meesha la keenana waxay ku soo eedeeyeen iyo baaraha waxay yidhahdeen 500 oo haya oo asna loo soo tuuray cabdifataaxna wuxuu sheegay inuusan haynin wax caddeynna waa loo waayay baarahan wuxuu sheegay waxaas inay maqal ahaayeen cabdifataaxna uu iska diiday wax loo haayana ma jiraan qofna kuma sheegin haddii aan ka xafiis ahaan aan aragna meesha haba yaraatee wax maxaa la yidhaahdaa caddeyna oo dhibaata ay ummaddan geysteen ma jiraan waxaan rabnaa annaga oo aanan waqti badan qaadanayn maxaa la yidhahdaa maxkamadda inay jiraan markii lagu qabsaday maalmo ma gelin habeen sano saddexaad markii lagu qabsaday ma gelin mar habaabin haba yaraatee la dhihi maayo taleefonkaagaan ku hayna $1 taleefonkiisaa la yaqaanaa waxaa la haayaa taleefanadiisa lacagaa lagu soo diray waatana lama haya cabdiqaadir waa eedeysanaha labaad waay xasanna $1,000 ee lagu soo qabtay waa iska dhiibay oo asigana wuxuu haayo ama wuxuu cuno oo ilaahay barto ma jiraan waxaan rabnaa marka inaan warka badan ku daalin maxkamadda maadaama muddo ay fadhiday inaan gabagabad u gudbo gabagabadayna iyo codsigeena wuxuu yahay maadaama hore aysan u ahayn caadaystayaal dambi cabdifataax iyo xasan baarahana uu sheegay in 30 kiis oo hore uu qabtay weligiisna uusan arag ee hadda ugu horeyso maadaama uu saysan jaha wareerin laamaha ammaanka iyo cadaaladda ee wax allaala wixii saxa ay ka sheegeen maadaama ay dhibanayaal yihiin ay ku xidhan yihiin 5 bilood maadaama falku dhacay natiijana aysan ka dhalanin lacagta lagu qabtayna aysan cunin lana taaban oo sideedii loo haayo oo natiijo aan lahayn aysan cunin lacagta waxaan codsanaynaa in maxkamadda xorriyaddooda siiso 5 bilood ay xirnaayeen ilaahay u dharab saaro saasaan maxkamadda ka codsanaynaa wabillahi tawfiiq gaashaanla sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada kuwaad ee ciidamada qalabka sida ayaana ugu dambeyn fadhigan soo xiray cabdifataax akhyaar warbaahinta qaranka muqdisho